hadda waxaan nahay safar waxaan ka ambabaxaynaa magaalada Cadaado waxaan ku wajahanahay deegaan dalxiiseedka Cadaado yaryar Cadaado yaryar waa deegaan dalxiiseed ku yaala duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud qiyaastii 8 kiiloomitir ayuu u jiraa Cadaado bilicda deegaanka Cadaado yaryar waa mid dabiici ah ee ma ahan mid la baxrimiyay qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa halkan u soo aadaa inay u soo dalxiis tagaan xilli roobaadka si ay ugu soo qaataan jawi ka duwan kii magaalada Cabdinuur Ciise Cilmi waa musharax u taagan gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado waxa uu TV-ga Ariel sharaxaad ka siiyay deegaan dalxiiseedka Cadaado yaryar meelaha loo soo dalxiis taga ugu wanaagsan inta aan hadda uga jeedo run ahaantii waa meel jawigeedu aad u degan yahay haadi ah qabow ah xilligu waa xilli goor galab ah qorraxdu ay aad iyo aad baalka u sii dhigatay run ahaantii waxaan u jeedaa dadyow aad u fara badan gawaariyaal kala duwan deegaankan dadka inta badan waxa u yimaadaan inay ku soo galaan sawirro balse docda kale waxa jira dad ayagu kaliya u yimaada inay ku sahawad badashaan maadaama magaalada laga helo goobo ku habboon sawirrada waxaan u mahad celinayaa Axmed adiga iyo bahda Ariel TV intaan oo qof iyo groupkeenana waxaan nagu qasabtay in halkan u soo baxno dabaysha fiyow iyo sidoo kale ugbaadka halkan ay leedahay quruxda badan ay nagu qasabtay inaan u nimaadno kaliya laakiin muhiimadda ugu badan halkan loo soo aado waxay tahay marka laga soo tago sawirrada kulli magaaladu waa leedahay meelo badan oo sawir lagu galo laakiin tan waxay uga duwan tahay waa dhul iyadu ballaaran oo aan xandidnayn oo meesha rabto aad ku safri karto aad ku socon karto idoo waliba qaadanaya ogbaadkii sidoo kale leyrta naqa ka soo baxaya ma ahan dalxiisayaasha kuwa ku eg maalintii kaliya balse waxa ay ku qaataan dhowr saacadood oo ka mid ah saacadaha habeenkii sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dhalintii aynu halkaasi kula kulannay waa jawi aad u qurux badan oo macaan badan nacaawda iyo deganaanshaha meesha ka muuqda inkastoo waqti hadda maqriba aan joogno oo qorraxdii naga dhacday haddana waxaan mar walba waxaan ahay dadka jecel inay meelashan ku soo laalaabtaan waqti ku qaataan ilaa haddana waxaan rajaynayaa 4 saac habeenimo inaan ku gaaro ama 10 habeenimo runtii ma ahan inaba meel laga tagi karo meeshaan laakiin meesha Cadaado yaryar oo waxay ugu duwan tahay xilli roobaadka cimilada kale iyo doogga indhaha ay soo qabanayaan oo kale boqolaal qof waxa arkay habeenkii xitaa ku gaaray 2 saac baar 3 saac habeenimo waxaana koos gareynaya xilli roobaadka markii la gaaro ka da'aan roobo meelahan oo kale jawiga meeshaan oo Cadaado yaryar dooggeeda iyo waxyaabahaas oo kale dadku jeclaadeen waana maasantiin telefishinka Ariel iyo wari Axmed marka laga soo tago magaca Cadaado yaryar waxa jira dad ayagu ula baxay magacyo kale maxaad ka taqaanaa magacyadaas ani ahaan ra'yahanteeda meeshaan waxa waa aqaanaa ku dalxiis oo ku dekee waa meel aad doog cagaaran u leh oo qurux badan run ahaantii meeshaan waxay ku wanaagsan tahay asxaabta dadka asxaabta inay imaadaan ee ku dalxiisaan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waa meel qurux badan run ahaantii waan ku faraxsanahay in aan jawi la qaato asxaabteeda Axmed Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Cadaado